Fanaanka Ilka Casaqeys ayaa caawa arrin la yaab leh ka dhawaajiyay waxaana uu sheegay in bisha soo socota show lagu qaban doono magaalada Nairobi. Fanaanka Sharma Boy iyo sidoo kale saantaankiisa Maslax Mideeye waxaana uu sheegay in showgaas ay kasoo qayb gali doonaan fanaaniinta kale ah Maxamed Kaaderi, Xariir Axmed, Suldaan Seraar iyo fanaaniin kale oo aad u fara badan. Waxaana uu sheegay in bisha soo socota showgaasi lagu qaban doono magaalada Nairobi fanaanka Sharma Boy. Hase yeeshee Sharma ayaa arrintaasi ka hadlay si cad ayuuna u beeniyay waxaana uu sheegay in showgaas uusan ka qayb galin isla markaana la rabo in lagu shirqoolo laguna damiyo dhacdooyinkii maalmihii ugu dambeeyay ama saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada haystay ee ahaa dilkii loo geystay yarkii YouTuber-ka ee lagu magacaabi jiray Maxamed Amiin isla markaana dhibaatada weyn lagu geystay sababta uga hadlay arrinta Sharma Boy iyo Axmed Rashiid. balse daawad waxaan ka xusanaya xogtan oo dhameystiran intaan ku soo gudbin inaad muuqaalkan la gareysid sidoo kale aad ku soo biirtid channelkeena adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ta. Mahadsanid. Ilka Casaqeys ayaa caawa bartiisa Facebook qoraal leer iyo sawiro iswata oo soo dhigay ku shaaciyay in bisha soo socota show lagu qaban doono magaalada Nairobi fanaanka Sharma Boy. Showgaasna ay kasoo qayb gali doonaan fanaaniinta ugu caansan Soomaalida sida Xariir Axmed, Suldaan Seraar, Maxamed Kaaderi iyo fanaaniin kale oo aad u fara badan. Hase yeeshee arrintaasi waxaa si cad u beeniyay ugana soo horjeestay fanaanka Sharma Boy waxaana uu sheegay in showgaasi la rabo in asaga lagu shirqoolo laguna dhibaateeyo. wuxuuna sheegay sidoo kale in la doonayo in lagu dumiyo xiisadda baraha bulshada ka taagan ee ah dhibaatadii loo geystay wiilkii YouTuber-ka ahaa ee lagu magacaabi jiray Maxamed Amiin. waxaana uu sheegay in showgaasi uusan ka qayb galin lana doonayo in dhacdooyinkii ka dhashay hadalkii iyo sidoo kale muuqaalkii dareenka lahaa oo soo duubay fanaankan lagu baabi'iyo. waxaana uu sheegay in showgaasi la doonayo in asaga lagu dhibaateeyo laguna shirqoolo. haddaba daawadayaal maalmihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada ka taagnaa dagaal u dhexeeya Daahir Cali Sow iyo sidoo kale Sharma Boy. hase yeeshee dagaalkaasi ayaa bulshada Soomaaliyeed waxay dib ka ogaatay in dagaalkaasi oo lagu weyn ku lahaa sarkaal ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka waddanka Kenya laguna magacaabo Axmed Rashiid oo aad caan uga ah magaalada Nairobi dilal aad u fara badan u geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku noolaa waddankaasi Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. sarkaalkan ayaa waxa uu handadaa shakhsiyaadka ugu caansan Kenya asagoo baad ka qaata ganacsatada iyo sidoo kale cid kasta oo rabo in uu madax furasho ka qaato. sarkaalkan lagu magacaabo Axmed Rashiid ayaa waxa uu horay biskoolad madaxa uga qabtay Deeq Darajo oo ahaa shakhsigii YouTube-ka Sharma Boy hayay isla markaana baasweerkii Sharma Boy sidaas lagu wareejiyay Daahir Cali Sow. hase yeeshee markii uu muuqaal dareen loo soo duubay fanaanka Sharma Boy kagana hadlay dhibaatooyinkii uu soo maray intii dagaalka ugu jiray ayaa wuxuu ku sheegay in sarkaalkan lagu magacaabo Axmed Rashiid uu ahaa sarkaalkii ama qofkii ka dambeeyay in YouTube-kaasi uu gacantiisa ka baxo. waxaana uu sheegay in dhibaato weyn uu geystay asaga iyo asxaabtiisaba. hase yeeshee wiil lagu magacaabo Maxamed Amiin oo YouTuber ah kuna nool waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ku noolaa ayaa shalay waxa uu sameeyay barnaamij oo dadka magaalada Nairobi ku sugan xagaaraan xaafad Islii oo ku weydiinayo dareenkooda ku aadan dagaalka baraha bulshada ka taagan ee u dhexeeya Sharma Boy iyo Daahir Cali Sow. wiilkaas ayaa mikrofoonka la dhex qaaday bulshada wuxuuna ka aruuriyay ra'yigooda ku aadan arrintaasi balse waxa aad u dhibsaday arrintaasi Daahir Cali Sow iyo Axmed Rashiid oo isku garab ah waxaana la go'aansaday in ninkan ama yarkan YouTuber-ka laga aarguto ama dhibaato loo geysto. xalay ayaa waxa kala baxay gurigiisa oo ku yaala magaalada Nairobi gaaraan xaafad Islii waxaana la geystay meel banaan halkaas ayna lagu jirdilay ilaa uu ka suuxo. muuqaal uu soo duubay Maxamed Amiin oo ahaa mid muuqaalkaas oo ahaa mid dareen leh ayaa wuxuu ku sheegay in dhibkan uu geystay Axmed Rashiid isla markaana uu soo diray dhalinyaro ayna dhibaatooyinkan u geysteen. waxaana uu sheegay in markii ay jirdileen dhibaatadan intaan leeg ee ka muuqatana ay u geysteen ay la xiriireen Axmed Rashiid isla markaana loo geeyay. waxaana uu sheegay in Axmed Rashiid uu ahaa shakhsigii ka dambeeyay in dhibaatadaas loo geysto. waxaana sidoo kale uu sheegay in uu doonayo in Cadnaan Mondel oo ah shakhsi baraha bulshada caanka oo ka hadlay arrinta Sharma Boy asagana dhibaato loo geysto. waxaana Cadnaan Mondel oo cod laga duubay asagana uu sheegay in dhibaato weyn ay soo wajahday iyo cabsi kadib markii saaxiibkiis Maxamed Amiin dhibaatooyin fara badan loo geystay isla markaana loo jirdilay. sideed uga hadli kartaa arrinta Sharma Boy iyo Daahir Cali Sow? wixii ka soo kordhay showgan iyo sidoo kale diidmada qayaxan oo Sharma Boy kala hortagay ku dhawaaqistii Ilka Casaqeys kaga dhawaaqay bartiisa Facebook inuu show qaban doono
bisha soo socota una qaban doono Sharma Boy ayna kasoo qaybgeli doonaan fanaaniin caan oo ka mid yahay Suldaan Siraar, Xariir Axmed iyo fanaaniin kale ayaa aad looga hadlayaa baraha bulshada saacadii ugu dambeeyay. Waxaan idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay arrintaasi. Waxaan idinka codsanaynaa marka hore inaad muuqaalkan la gareysaan, sidoo kalena aad kusoo biirtaan channelkan idinkoo taabanaya calaamadda subscribe-ta. Noolaada dhammaantiin.